ma ku dhiban tahay indha qaleelka? Haddii jawaabtaadu tahay haa, xalkaaga waa kana. Waxaa u baahan tahay in indhahaaga ku dabaalsiisid saliidda. Saliidda sidaas ugu dabaalsiinaysaa geesaha cajiina laga marinaa, kadibna saliidda lagu shubaa indhahaaga sidaas ay ugu dabaalanayaan saliidda. waa yaabantaa Soomaa saamee walba indho looga hadla iga soo tuuraysa halkan ma iga soo durteen haddana caadiyaha marka hore horta indhaheena si uu qaleel uusan u noqon saliid miyuu u baahan yahay jawaabtoo kooban waa haa laakiin saliidda haddartaan aragtoo kale ma ahan qanjirka ilinteena saliid ayuu soo daayaa saliiddaas oo ilinta ku jirto ilin weli ma aragta ilinta caadiga oo nadiifka ah saliid ayaa ku jirto oo indhaheena second ka mid ah xataa saliid la'aan ma ahaan karaan qanjirka ilinta ayaa saliiddaas soo daaya oo sidaasay mar walbo ee qoyaan isha ugu dhigtaa hadday kala go'dana qofka indhoola ayuu noqonayaa laakiin dadka indha qaleelka aad uga cawdoo kale tusaale ahaan oo hadda muuqaalka haddartaan aragtay inaad la yaaban tahay laga yaabaa haddartaan ugu cusbo 5,000 sano ka hor caadi dhaqameedyada hindiga ayaa qaabkan isticmaali jireen laakiin qofka marka loo ugu dhibciyo kale ama saan loogu shubo cajiinka arkaysan oo kale sakamada yar indhaha ugu jirta xoogaa nafis ayuu dareemaa maadaama saliid helayo laakiin dhibka ugu weyn waxaa waaye oo inta badan ay ka caban jireen oo ay jawaab u waayeen waxaa waaye infection daran oo indhaha inta hal mar ka soo weeraro kadib indhaha inta infection ku sameeya oo saas qofku indha beeli jiray kadib waxyaabay ugu jawaabi jireen mataqaan dadka waxaan sameyn jiray waxay dhihi jireen qofkan jirkiisa ayaa sun soo deena sun maashay waa qof inta sidii mataqaanaa weel ama indhihiis loo shubay sida macsharo iyo bur camal loo karkari indhihiisa indha qaleelka horta weligiis sidaan dadka u dhibi jiray haddeertaan oo horumar badan la gaaray saliidan maadaama indhaha ay u baahan tahay oo qanjirka markaa dadka aan soo deyn karin oo kale saliid ahaan indhaha ma lagu dhibci karaa haddii aan fiirno cilmi baarista ugu dambeysa oo kale saliidda nooca castor oil la yiraahdaa saliiddaas baaritaan lagu sameeyo oo kale oo warshado la mariyey goojooyinka oo indha qaleelka loo isticmaalo ayaa laga isticmaalaa oo qayb yaroo ka mid ah ayaa inta badan loo isticmaalaa in ay goojadaas ay ku jirto laakiin marnaba laguma talinayo saliidda si toosa indhaha in loogu shubiyo si toosa marka qaar hareeraha indhoolka loo isticmaali karaa xitaa sida xayisiyo markaa lagu arko kale timaha baalasha loo isticmaalaa ku qoran timo dheereeya laakiin cilmi baaris saxa oo sheegaysa timaha baalasha indhaha inuu dheereeyo xitaa ma jirto gabadha muuqaalkan baraha bulshada Soomaaliyeed kusoo gudbisan waxaan dhihi lahaa caadi dhaqameedyada oo Soomaalidu hadda dadka indhaha tiro ayaa qaati billaah ka taagana tii Hindi ma noogu soo darta hadana haas dhihin toorka horumarkaaga ayuu ku xun yahay waa ogsoona inaad rabtid cajiinka saliidda inuu ku gadmo laakiin kabar fikradan ku haya haddii aad dhahdid muuf iyo doolasho iyo saliideeda u fiican tahay macaan ayaa laga sameyn karaa fikrad fiican maho adigana wax walba aragtid iska sameey indhaha ku shub yaa weylak